Bismillaah. Magacayga waa Maxamed Shiine, waxaan ahay agaasimaha Soomar. 12 sano ugu dambeysay waxaan ka shaqeynayay hal-abuurka ganacsiga, gaar ahaan ganacsiyada la xiriira teknoolojiga. Halkaas oo aan hal abuuray 9 ganacsi oo 5 ka mid ah ay guuleysteen. Markii aan hal abuurayay ganacsigii ugu horreeyay, waxaan ahaa arday fresh ah oo markaas jaamacad ka qalin jebiyay oo wax khibrada aan lahayn, weliba gaar ahaan jaamacadaha gudaha, jaamacadda Siman. Waxaan halkan idinkula wadaagayaa barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan habka ugu fiican ee aad ku hal abuuri kartid ganacsi guuleysta. Gaar ahaan waxaa target gareynayaa dhalinyarada freshka ah oo jaamacadaha ka soo baxay oo markii aan qalin jebinayo kale ugu duruufta ahaa. Xalqadeena maanta waxaa ka hadlaynaa 10 sifo oo laga doonayo qofka raba inuu noqdo hal abuur ganacsi. Sifada number 1 waxay tahay qofka inuu creative yahay, inuu hal abuur leeyahay, inuu wax isku alifi karo oo curin karo. Dadka qaarkood way u dhashaan hal abuuridda iyo curinta, dadka qaarkoodna waxay ku gaaraan khibrad iyo aqoon ay kasbadaan. Number 2, inaad garanaysid waxa aad rabtid inaad hal abuurtid. Waa inuu kuu muuqdo humaag wax aad rabtid inaad ganacsi ka samaysid. Waxay dhahaan waxa ugu fiican hal abuur qofka ganacsi ka sameeya wax uu ku fiican yahay. Sida ognahay qof kasto anaga naga mid ah waxaa jira wax uu xiiseeyo, uu jecel yahay, uu ku fiican yahay. Way u badan tahay inuu guuleysto qofka ganacsi ka sameeya waxaas uu jecel yahay, uu xiiseeyo. Number 3, waa inaad markasta arday ahaataa. Waa inaad u diyaarsan tahay inaad qof kasta wax ka faa'iideysan kartid. oo haddii aad isu haysato inaad tahay qof adag oo cilmiga daadshay oo qofna u baahnayn, waxay yareynaysaa jaaniska aad ku noqon kartid hal abuur guuleysta. Waa inaad qof ka hooseeyo, qof ka sareeyo, qof kasta u tagtid, wax ka faa'iideysatid, cilmi ka baratid. Nolosha oo dhanaaba ahba inaad markasta arday aad tahay. Qodobkeena 4 wuxuu yahay in ay kugu jirto xamaasad inaad u haysid inaad wax hal abuurtid, in xiiso kugu jiidaya inaad wax cusub soo kordhisid inuu jiro. Haddii aad xamaasad u hayn inaad wax hal abuurtid, dabcan hal abuurna ma jiro. Number 5, inaad tahay qof isku kalsoon oo aaminsan inuu wax hirgelin karo, guuleysan karo, oo aan cabsida iyo baqdinta ay ku yartahay. Marka kalsoonida wax weyn ayay ka tahay tilmaamaha uu leeyahay qofka hal abuuraha ah. Qodobkeena 6, inaad awoodid inaad isdhiirigelisid, inaad dad kale ka sugin inay ku dhiirigeliyaan. Mararka qaarkood waxaa ku imaan karo caqabado aad ku soo waajihi karo. Marka caqabadaas waxaa kaga gudbi kartaa inaad adiga isdhiirigelisid, aad dhahayd waxaan haddaa sameeyo waa ka guuleysanaya, oo aad qof kale ugu fadhin inuu ku dhiirigeliyo. Qodobkeena 7 wuxuu yahay inaad ku fiican tahay connection, inaad isku xirxiridda, saaxiibo kasbashada, inaad ku fiican tahay, inaad ku firfircoon tahay. Qof haddaa tahay qof xirxiran oo xishood badan oo baqdin badan, ma aha jaanis fiican kuma aha inaad business hal abuurtid. Marka waa inaad ku fiican tahay inaad kasbatid saaxiibo badan oo faa'iido u leh ganacsigaaga iyo hal abuurkaaga. Number 8, optimism. Waa inaad tahay qof markasta dhinaca fiican wax ka fiiriyo, qof ay u muuqdaan waxyaabo positive ah oo wanaagsan, qof aan sharaysigu ku yar yahay, cabsidu ku yar tahay, u muuqdaan inay jiraan fursado tiro badan oo wanaagsan. Taas marka waxay ka saacidaysaa qofka inuu markasta hal abuur joogto ah uu la yimaado, uu wax curiyo, rajo fiican nolosha uu ka qabo. Qodobkeena 9 wuxuu yahay qofka inuu risk taker yahay, inuu ku fiican yahay inuu khataraha u bareero. Khataraha meeshaan aan ka hadlayno dagaal ma aha dabcan, waxaa laga hadlayaa
qofka maanta dhan inuu dhihin arma fashilma, armi waxa laga iibsan waayaa, ama dadka ila yaabaan waxaan hadda sameeyo. Marka inay kugu jirto aaminsan tahay in aa wax hal abuuri karto, guuleysan karto. Macnaheeda maaha inaa khataraha isaga bareerayno, macnaheeda maaha. Waxaa jira process la maro oo dheer oo kasoo bilowdo inaa marka hore markaa rabtid inaa ganacsi hal abuurto aa research inaa sameysid ay tahay. Marka waxaa ugu tegi doonaa xalqadeena 3aad oo ah sidee ganacsi loo hal abuuraa. Sifada 10aad waxay tahay qof waqti hore ah, qof ku fiican in waqtigiisa flexibility ay ku jirto, qof saacado dheer shaqayn kara awood u leh, qof dadka qaarkood waxaa laga yaabaa markay shaqada kasoo baxaan telefoonada inay dansadaan. Dadka qaarkood waqtigooda u arrange gareysan yahay oo saacad ay hurdaan, saacad ay jimicsi galaan, waqtiyadooda kala nidaamsan yihiin oo waqtiyadaas oo program kale markay leeyihiin ay hawl kale gelin. Marka kan taasoo kale marka weliba gaar ahaan marka aad tahay qofka ay shaqada ka bilaabato kuna dhammaato aad tahay oo aa wax cusub hadda hal abuureysid oo u badan tahay in adiga iyo hal qof oo kale saaxiibka aad tihiin, ma ku suuragelayso inaa waqtigaaga u xirxiran yahay. Marka waa inaad tahay qof waqti kasta marka xilli kasta diyaar ah, customer soo waco, meel aado, qof la soo kulmo, saacado badan shaqeeyo, juhdi badan galo. Marka dambe oo aad team badan, saaxiibo badan ha yeelato, waxaa laga yaabaa inaad kala nasatid oo timekaaga arrange gareysatid. Marka maanta xalqadeena intaas ayay noogu eg tahay. Hadduu Alle idmo xalqada xigta waxay ku saabsan tahay sidee loo hal abuuraa fikradda ganacsi. Markaa rabtid inaa ganacsi hal abuurtid waxaa ka horeysa inaad fikrad heshid. Marka mawduuceena soo socda waxaan ka hadlaynaa fikraday sidee lagu helaa, fikradaba sidee. Marka fikradda sidee loo helo iyadana steps aa jira la maro oo kala duwan. Marka usbuuc soo socda waxaan ka hadlaynaa hadduu Ilaahay idmo sida fikrad loo helo. Waxaan rajeynayaa inaad leedahay insha Allah sifo hal abuur aa leedahay. Qasab maaha inaad 10kiiba wada buuxisay, qasab maaha, laakiin ugu yaraan in aa baastay oo 6 ka mida aa soo gaartay. Aad aa umahadsantihiin. Wixii fikrad ah iyo haddii aa is leedahay 10kan sifo waxaa ku beerin kartaa sifooyin kale oo yeelan karo, nala wadaag. Sida idin sheegay sifooyinka qofka hal abuuraha waxaa ka mid ah inuu markasta arday yahay. Marka aniga waxaa ahaa ardayga ugu daran halkan waxaa u joogaa idinkana inaa wax idinka faa'iido aan kala faa'iideysano. Waa mahadsantihiin. xalqadeena maanta intaasay ku eg tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.